Jacaylku waa daryeel, ixtiraam, kalsooni iyo naxariis kaasoo ay wadaagaan laba lamaane, balse mararka qaar waxa uu noqon karaa shumac holciya qalbiyo badan. oo waxaa la dhahaa jacaylku waa sida laastiig kaasoo labada cirif ama labada daraf ay kala hayaan labada lamaane, mid hadduu dhankiisa sii daayana kan kale ayuu xanuujiyaa. Haddaba mowduuceena maanta daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa sida loo ilaawo qof kaa tegay. haddaba waa su'aale ma jiraa qof jecel inuu ilaawo qof uu jecel yahay? nolosha aan ku noolnahay mararka qaar waa sidaas, waxaynu ku khasbannahay inaynu ilowno qof aynu jeclayn ama aynu maalin un jeclaanay, sababtu ay tahay qofkaasi jacaylkeennii ugama soo bixin sidii la rabay, amase iska badaa inuu ka soo baxay wuxuu noo geystay dhaawac aad u xoogan, qalbigeenna ayuu jabiyey, cidle ayuuna nooga tegay xilli aan aad ugu baahi badnayn. markaas waxaynu ku khasbannahay inaynu qofkaasi nolosheena ka saarno oo ilowno. waxaan maanta halkan kuula wadaagayaa 6 tallaabo oo haddaad raacdo aan kuu ballan qaadayo inaad ku ilowdo qof kasta oo aad jeclayd ama jeclaatay oo kaa tegay, xataa haddaad aad u rabto hadda ama aad u ooyeyso. ee ku soo dhawaada mowduuceena maanta. haddaba intaynaan u gudagelin muuqaalkeena maanta, fadlan nagu soo biir oo taabo calaamadda subscribe, muuqaalkana like saar. mahadsanid. 6 tillaabo aad ku ilaawi kartid qof aad jeclayd oo kaa tegay. 1. aqbal in xiriirkaani dhammaaday oo dil rajada. ma taqaanaa sababta aynu uga samirno qofka marka uu naga dhinto? waa inaynu si 100% ah u hubno inuusan qofkaasi dibdaba noogu soo laabanayn, si kasta oo aynu u oyno. aqbal adna in qofkaasi xiriirkiinni uu dhammaaday, qalbigaagana ka saar rajada ah inuu maalin un kuu soo laabanayo. jooji sawirashada xusuusihii tegay iyo waqtigii aad isla soo qaadateen qofkaas, waayo dib uma soo laabanayo. haddaad sawirato xusuusahaasi qofka aad isla soo marteen, waxaa kugu sii xoogaysanaya jacaylka aad qofkaas u qabtid, marna ha samaynin midaas. 2. tirtir dhammaan xusuusihiisa. haddaad sii haysato qofka aad jeceshahay xusuusihiisa sida hadiyadaha uu ku keeni jiray, sawiradiisa, muuqaallo uu leeyahay, fariimihii aad isu diri jirteen, ogow maskaxdaada adaa u ogolaanaya inay qofkaas jacaylkiisa kusii siyaado ama dhaawac kugu sii kordho. iska masax wax kasta oo ku xusuusinaya qofkaas, xataa WhatsAppkiisa iska dhiliid, sidoo kale Facebookiisa unfriend eh. waxay kaa caawinaysaa inaad si dhaqso ah u ilowdid qofkaas. 3. ogow inay jiraan dad badan oo ka fiican. ma taqaanaa sababaha ugu waaweyn ee keena inuusan qofka kaa tegay ka bixin xusuustaada? waa adigoo aaminsan inaysan jirin cid ka fiican ama u dhiganta qofkaasi. haddaba niyadaada u sheeg oo ogow inay jiraan dad badan oo ka fiican isaga, balse aadan weli la kulmin dadkaasi adigu. niyadaada mar kasta u sheeg inaad heli doontid qof ka wanaagsan qofkii kaa tegay. 4. dib u dhis naftaada. dib u hano noloshaada oo waqtigii aad gelin jirtay qofkaasi ama aad la hadli jirtay ku bedel waxyaabo noloshaada horumarinaya, sida wax akhriska, jimicsiga, waqti la qaadashada asxaabtaada, caawinta waalidiintaada iyo waxyaabo kale oo wanaagsan. xaqiiq noloshaadu way isbedeli doontaa. 5. jooji inaad qofkaasi si hoose ula socotid. waxaa dhacda in markaad qofka asbuuc ama 2 ka maqnaatid oo lugta saartid wadadii aad ku ilaawi lahayd, inaad mar si kadis ay maskaxdaada ku tiraahdo bal fiiri qofka ma online ba, bal fiiri profilkiisa ma bedelay ama boostiyo cusub ma soo dhigay, ama inaad ka warhayso asxaabtiisa adoo weydiinaya oo leh qofkaasi muxuu ku sugan yahay. haddaba ha samaynin midaasi, waayo waxaa kugu sii badanaya dhaawaca. marna warkiisa ha maqlin, hana baarin xaaladihiisa iyo waxa uu ku sugan yahay qofkaasi. 6. allah kaalmayso oo bari. qodobkani waxaan ugu dambaysiiyey waxa uu leeyahay ahmiyad gaar ah. qalbigaaga cidda uu gacantiisa ku jira waa Allah subxaanahu wa tacaala. allah ka bari inuu qofkaas qalbigaaga ka saaro. qof kasta oo dhib kuu geysanaya ama qalbiga kaa jibanayana ka dheereeyo noloshaada, waa hubaal inuu allah ducadaada aqbali doono. haddaba waxaan intaan kusoo gabagabeynayaa 6 tallaabo oo kaa caawin lahaa sida aad u ilaawi lahayd qof kaa tegay. haddaad garanayso qodob ama 2 dheeraad ah, noogu reeb qaybta commentiga. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkiinan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan oo qoraal ah waxaad ka helaysaa website-keena www.mandisa.com. waxaana idiin soo dhigi doonaa qaybta description-ka ama commentiga ugu horeeya ee fadlan ka booqo halkaas.